inaad ku raali noqoto waxaad haysato waa wadada guusha. liibaantu waa inaad ku raali noqotaa nasiibkaaga nololeed. liibaantu waa inaad ku raali noqotaa noloshaada si kastoo ay tahay. laba ha u sheegin sirtaada saaxiibkaaga cusub iyo cadowgaaga hore. noloshu waxay i bartay inaan aamuso markaan caraysanahay, markay caraydu degtana inaan hadalka bilaabo. sidoo kale noloshu waxay i bartay inaanan kala xukumin intaan dhageysanin ka hor dadka is haysta. waxay kaloo noloshu i bartay inaan Ilaahay ugu shukriyo wuxuu i siiyey iyo wuxuusan i siininba. ayaan daridu waa inaad samaysaa waxyaabo aadan jecleen inaad samayso. ku dhamayso waqtiyadaada waxyaabo wax kuu taraya. waxaad dareemi doontaa raali ahaansho iyo nasiino, gaar ahaan markay kuu soo baxdo natiijooyin dhiirigelin ah. markii qof i dulmiyo, Ilaahay ayaan baryaa, umana baryo soo igu aargudo, balse waxaan u baryaa inuu dulmi ii qaado oo keliya. mar walba qofka cimrigiisa ziyaado waa mar walba uu soo laabto caruurnimadiisii cusbay, wuxuuna u baahanayaa qof hogaamiya. waxaynu ilaalinaa balamada shaqadeena, mana ilaalino balamada Ilaahay. alla maxaa naga xun. markaad dareento gaajo, cunto walba lagu keeno way ku macdahay, balse markaad dherigsan tahay waxaad bilaabaysaa inaad kala soocato cuntooyinka. ugu horeyntii inaad wax weydo waxay ka khayr badan tahay ugu dambeyntii inaad wax walba weydo. quruxdaadu qiimo ma lahan haddii aad dabeecad xun tahay. waanu ku socoto ragga. quruxda wajiga way dhammaanaysaa muddo kadib, balse quruxda caqliga way kordhaysaa mar walba oo cimrigaaga kordho. dadku way damcaan waxa ay dadka kale ay haystaan, xataa haddii ayagu waxa ay haystaan uu ka fiican yahay. noloshu waxay i bartay inaanan rumaysan wax walba oo la yiraahdo ama wax ka mid ah, balse xaqiiqada waxaan ka raadiyaa qaladaadka carabka.